maanta taariikhdu ku beegan tahay 6 bishii 3aad 2022 waxa inuu soo gabagabowday tijaabo aan wadno oo ahaa calafka xoolaha in la sameeyo waan naqaanaa muhiimadda ay noo leedahay calafka xoolaha khaas ahaan xilliyada hadda la joogo oo kale xoolihii u baaba'ayaan calaf xumi saadarteed marka jaamacadda Zamzam khaas ahaan kulliyadda beeraha iyo centerka loo yaqaan Center for Sustainable Agriculture and Environmental Study waxay aad ugu mashquulsanaayeen in laga xal loo helo xilliga abaaraha laga fikiro waxay cuni lahaayeen xoolaha marka iyadoo la isticmaalayo tiknoolajiyada la isticmaalayo saadarteed jaamacadda Zamzam labadii bil ugu dambeysay waxay ku mashquulsanaayeen tijaabo ah calafka xoolaha kaasoo loo isticmaalayo tiknoolajiga maanta ilaahay mahadiis waxa inoo suurtagelay calafkii inaan ku sameeyay harvesting ayadoo ka qayb qaatay harvestingkaas xoolo dhaqatada ku sugan magaalada Muqdisho hareeraheeda ee ka soo qayb galay in arkeen halka calafka xoolaha meeshaas ku yaalay waa nooc galey ah loogu talagalay in laga sameeyo calafka xoolaha marka galeydan loogu talagalay in laga soo saaro sabuul ama xaruur in laga soo saaro loogu talagalay laakiin waxa loogu talagalay in cunto loogu dhigo xoolaha waxaan sharaf noo ah annagoo ah xoolo dhaqatada ku nool magaalada Muqdisho agaarkeeda inayna casuntay jaamacadda Zamzam oo research badan oo ku taxalluqa beeraha iyo xoolaha sida geela, ariga, digaaga iyo wixii la mid ah waxyaalo badan oo faa'iido ah oo wadanka laga soo saari karo kabacdina xoolaha lagu nafaqeyn karo ayay nala wadaagtay jaamacaddu annaguna aad baanu maaragtay aad bay u ahayd aqoon kororsi noo fiican tijaabadan waxay ahayd iska bilaaw u baaheeday waxaan rajaynayaa biidhnilaahi kariim sanadada soo socda oo kale in tijaabooyinkan oo kale oo tiro badan inaan sameeyno soo kaleetana aan u soo bandhigno dadka tijaabada sameey doona ee qosayso xalna loogu helo abaaraha soo la laabtay in hadii imaato ilaahay nooma keenay in xoolaheeni ay helaan keed calaf oo xilliga u baahdaan ay cuni karaan soo kaleetana aan ku tababarno dadka xoolaha dhaqata inay igana calafka beertaan soo kale ay keedsadaan marka jaamacadda Zamzam iyo xarunta iyo kulliyadda beeraha dhamaantood anagoo isku duuban waxa diyaar u nahay mar walba inaan baahida bulshada ka jirto in xal loo helo jaamacaddu runtii waxay wadaa waxyaalo badan oo aan jaamacadaha kale laga helin oo sida nafaqada xoolaha mashiinada technology-ga oo hadda alkurisada hadda meesha aanu taaganahay waxaana la tusayaa hadda alkuroyahay machine harvesting oo jara hadda alkuroyahay dalagu markuu soo baxo xoolaha u jara ka bacdina shiida ka bacdina nafaqa xooluhu cuni karaan laga sameeyo si abaarahan iyo xoolahan dhimanaya iyo hadda alkuroy loogu helo solution helo annagoo dhulkii haysana beerihii haysana dalagii haysana waxyaalaha ka nooga yimaadaana ay yihiin wax aan la aqbali karin oo qiimo ahaan aan loo dhawaan karin xoolihiina u baahan yihiin nafaqa u baahan yihiin in nafaqadii wadanka laga soo saaro ayada oo jaban ka bacdina xoolihii ay saas nagu badbaadaan tayo iyo hadii la kula tiraba sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa cid walba oo doonaysa in ay ka samayso baxsi ay ka samayso calafka xoolaha waan soo dhaweynaynaa waxaan sii doonaa dhulka u baahan yihiin iyo qalabka u baahan yahay wixii gali lahaa si ay naftooda maskaxda waxa ka dhex guuxay ee u helaan meel ay ku fiyaan taasna diyaar u nahay